waa wax jiriya oo magac reer hebel ku gabanaya hooyadii fadada xabad ka soo ridayeen nin iskama celin karo asagana lama qaban karo xaaja rag maaha inta wadataan kala wataay banka inoo saaro habraha iyo caruurta laga dhaxsaar waxa ayaan darro ah oo wax la cajaba kuwa musharaxiinta sheeganaya in aysan meel kale oo ay qorsagaalo dadka shacabka ahaa ee reer Garowe inay qorsagaalo ku hayaan magaalada dhibaato ku haysa nimanka hadda sheeganaya musharaxiinta oo ka mid yahay Maxamed Faroole Atoosh يعني magaciisa khaldine ina diyaano ninka la yiraahdo xashan shiree abgaal ayaga qaybtooda waa wada hadalay waxba qaran ma yaano waxaan ku yiri hadda kala dhiig baan noo balana oo kala qaadayna kala dhiig baan soo istaagay maanta waxa la yiri waxay joogaan dana meesha la yiraahdo maxjarka laboor ayadana waxa salaada waa meel banaan oo xalay aan ka balano waxa ay riyo yana xaafadaha hadii aan ilaahay uusan isayjinay xaafadaha iyo caruurta yana saddex gali maxjarkiina waa imido ma joogin sidii aan ku aqaanay oo dhaqanka u ahaa xaafadii bay la soo galeen barxadda dabaqyada fuuleen dabaqni fuul waa garanaysa awoodiisa dadka shacabka inay ftada la galaan nin guriga hooyadii ftada xabad ka soo ridayeen nin iskama celin karo asagana lama qaban karo marka waa ka xumahay dadkaas wixii gaaray shacabka anigu xaggayga kama isan ahaan magaalooyinka kale sida nabadda aan ku dhaxmarayay oo aan afkaartooda u dhiibanayay baan rabay caasimadda Puntland inaan u imaado oo afkaartooda u dhiibto oo macnaha xaqiiqda dastuuriga aan uga hadlo taasina qof ay dhibayso ama aniga xaqiiqda ama dastuur waxaan u leeyahay ama xorriyadda qowlkayga qof hor istaagi kara ma jiro dawladdu ma shaqaynayno nin hadda xilli leeyahay kursi ayuu ka soo deg ma ahayn oo maanta la dhahayo kursi uu fadhiyaa ama sida dalil leeyahay kursi ka soo deg ama waqti ka dhamaaday ma aan in hebel la weeraray baan ahaa waxay weerarayna waa wax jiriya oo magac reer hebel ku gabanaya oo xataa haday ku gabanayaan xaaje aan lahayd aan banaan u bixi karino aan rag iska dhicin karin marka waxaan leeyahay shacabka reer Garowe oo tacsiinaya shacab wanaagsan qalbi wanaagsan isu soo baxay maanta rabay dabaaldeg iyo hadii la ku rooyay dadkooda macnaha la qaybsadaan